ballaaran uu hogaaminayo ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim ugaas Roble ugaas Doodi ayaa subaxnimadii hore saaka lagu soo dhaweeyay degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley waxaana halkan oo xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ee Wajaale si diiran wafdigan ugu qaabilay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland salaadiin cuqaal waxgarad iyo waliba mas'uuliyiinta gobolka Gabiley maayir ku-xigeenka degmada Tog Wajaale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case maayir ku-xigeenka degmada Tog Wajaale Maxamed Xuseen Maxamed salaadiin cuqaal iyo waxgarad iyo waliba wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta dhulka Cabdilaahi Abokor waxaana yiraahdeen halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa ugaaska guud ee Ciise ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa ugaas Mustafa oo maanta nagu soo gaaray safar ayaan ku soo dhaweynaynaa degmo xuduudeedkan Tog Wajaale taasi oo salaadiintii iyo wasiiradii iyo dhammaan dawladuba ay ku soo dhaweynayso magaaladan Tog Wajaale sharaf bay noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno ugaas Mustafa ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas waanu kugu soo dhaweynaa magaalada Wajaale iyo dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkan kuugu diyaar soo dhaweyntaada waxaanu ku leenahay ku soo dhawow dalka aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaada aniga oo ku hadlaya magaca gobolka Gabiley waxaanu ku soo dhaweynaynaa halkan oo halka laga soo galo Soomaaliland oo Wajaale ah ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim ugaas waxaanu ku leenahay iyo gandayaashiisii oo la socda waxaanu leenahay ugaas ku soo dhawow dalkaagii annaga oo ka kooban wafdi ballaaran oo reer Soomaaliland oo isugu jira qaybaha bulshada oo dhan nooc kasta waxaanu halkan u joognaa qurxinta iyo soo dhaweynta ugaaska waxa weeyaan aad baan soo dhaweynaynaa suldaanka guud ee beelaha Ciise waa ku sugaynay saakaan salaadii ka soo kalahnay ilaa xilligaas aanu ku taagnayn dalkaagii baad soo gashay dadkaagii baad u soo gashay dalkaagiina waad soo gashay ugaas Mustafa ku soo dhawow sida la tilmaamay beelihii wadanka yaalay madaxdoodii meeshay ku dhantahay ku soo dhawow wadankaagii baa timid Wajaalaan ku soo dhaweynaynaa kulay anigu ana ku hadlaya afka xukuumadda ugaas waxaan kugu soo dhaweynaynaa si guud Soomaaliland waxaan anu aaminsanahay inaad tahay ugaas Ciise Matiid ugaaskii geeska Afrika ayaa tahay maanta waxa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno waxa timid gurigaagii ayaad ka timid waxaana timid gurigaagii labaad marka waad naga mudan tahay intaan in ka badan baa in lagu soo dhaweeyo waa dhaqan Soomaaliyeed waa dhaqan Muslim qofka kugu imanaya ee mudan in la muuneeyo marka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ilaahay wuxuu kugu ururiyay reerkii aad ka soo jeeday oo maanta waa reerka kaliya Soomaali dhaqankaygu taagan yahay halka ay ka bilaabeen gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo ka mahad celiyay soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha lagu qaabilay ugaas Mustafa Ibrahim ugaas waxana uu yiri waan wala salaam madax dhaqameedka sharafta leh iyo golaha wasiirada gobolka degmada qiimaha leh ee qaayaha la igu soo dhaweyseen aad baan ayaan ugu mahad celinayaa waa wadankayga labaad waxaan imiday waa dadkayga waxaan u imiday aad baan ugu faraxsanahay mar labaad mar saddexaad xukuumadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedka isku wada duuban sida fiican aad soo dhaweyseen aad baa iyaad ugu maasantii intaasi kadib wafdigan uu hogaaminay ugaaska guud ee beelaha Ciise ayaa loo sii galbiyay dhinaca caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa Khadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley.